haatanna ku soo dhowaada barnaamijka galka baarista iyo Haruun Macruuf. sanadkii 2014 bishii Sebtembar hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch waxay daabacday warbixin ballaaran oo ay kaga hadlaysay xadgudubyo iyo ka faa'iideysi dhinaca galmada ah oo ay geysteen ciidamada AMISOM ee Soomaaliya. Human Rights Watch waxay warbixinteeda ku sheegtay inay baaritaankeeda ay ku salaynayso wareysiyo kala duwan iyo cilmi baaris iyo inay wareysatay 21 qof oo la kulmay dhibaatooyinka xadgudubka galmada. ururka midowga Afrika ayaa haddaba baaritaan ku sameeyay eedahaasi waxayna sanadkii xigay ee 2015 ay daabaceen natiijada ka soo baxday baaritaanka ay sameeyeen iyaga oo qirtay 2 kiis oo ka mid ah kiisaska 21 ahaa ee ay baadhay hay'adda Human Rights Watch inay yihiin kuwa jira. Human Rights Watch waxay xilligaasi sheegtay in AMISOM ay adeegsatay dad dhexe oo u soo duma haweenka. waxay kaloo ku eedaysay in askarta qaarkood ay adeegsadeen gargaar bani'aadminimo. qaar ka mid a dadka dhibanayaashu waxay sheegeen in markii hore loo fidiyey lacag in loogu bedelayo. qaar kale waxay sheegeen in la kufsaday xilli ay daaweyn ama biyo u doonteen saldhigga ciidamada AMISOM. haddaba mas-uuliyiin Soomaaliyeed ayaa in muddo ahba waxay ka shaqaynayeen in askarta AMISOM laga fogeeyo inay xiriir toos ah la yeeshaan dadka rayidka ah si aysan u dhicin ama u imanin shakiga ku saabsan eedaha ku qornaa warbixinta Human Rights Watch inay mar kale soo laabtaan. gaar ahaan mas-uuliyiintu waxay diiradda saareen deegaan lagu magacaabo OPD ama Outpatient Department oo hore u ahayd xarun caafimaad oo ku dhex taalla saldhigga ciidamada AMISOM ee Xalane. xaruntaasi oo ay sheegeen inay ku nool yihiin 100 qof oo dad rayid ah balse ku dhex taalla xerada militariga ee AMISOM. mas-uuliyiinta sida weyn ugu ololeysay in xeradaasi la xiro waxaa ka mid ahaa duqii hore magaalada Muqdisho ahaana gudoomiyihii gobolka Banaadir Thabit Cabdi Maxamed. waad mahadsantahay horta reportka soo baxay sanadkii 2014 waan arkay oo runtii xataa recommendationskiisa xataa ay ka mid ahayd in la fuliyo waxyaabaha ay ahayd meeshaas in la xiro. laakiin annaga reportkaas lasoo saaray maba ahayn bawdiirada waxaan saarayna oo saxda ah dad Soomaaliyeed ee waajib naga saaran yahay oo inaan ilaalino akhlaaqdooda, badqabkooda, caafimaadkooda iyo adeegooda inaan ilaalino bay ahayd. saa darteed marka wax allaala wixii bulshadaas aan yani oo u nuglin kara ama dhib u keeni kara inaan ka hortagno. sidoo kalena ciidamada AMISOM way mahadsan yihiin, Soomaaliya way yimaadeen, ciidanka Soomaaliyeed wax badan bay la qabteen oo waxay ka mid yihiin howlgallada Soomaaliya la sameynayo. laakiin haddana bulshadana mas-uuliyad baa naga saaran inaan ilaalino waxyaabaha ee dhextaalka ee la xaqiijinayo, inaan ilaalino sharafka iyo karaamada dadkeena iyo waxyaabahaas oo kale in bulshadeena aysan marnaba ka dhex dhicin oo la xaqiijiyo in aanan fursad loo helin qalad inuu dhaco. annaga taabaan ka duuleynay oo aan xaqiijinayna dadkeena inay bulshada caadiga ku dhex furan yihiin. marka intaaba diiradda saareen annaga. xerada OPD waxay ku taallaa qaybta Xalan ee garoonka diyaaradaha Muqdisho waxayna deegaan ahaan ka tirsan tahay degmada Wadajir waxayse gudaha ugu jirtaa xerada ciidanka AMISOM. galka baarista waxa uu helay qoraalka shir ku saabsanaa sidii loo xiri lahaa xeradaasi oo ay ka wada qayb galeen mas-uuliyiinta rayidka iyo kuwa amniga ee AMISOM iyo weliba mas-uuliyiinta Soomaalida. mas-uuliyiinta shirka fadhiday waxay ahaayeen 12 oo isugu jira saraakiisha dhinaca xuquuqda aadanaha, anshaxa iyo akhlaaqda, injineero, booliis iyo xubno kale. shirkaasi waxa uu dhacay 8 bishii December 2017 oo ku beegan sanad ka hor. waxyaabaha lagu heshiiyey ee ka soo baxay shirkaasina waxaa ka mid ahaa in lagu heshiiyey qorshe waxqabad oo ay la yimaadeen maamulkii gobolka Banaadir kaasi oo lagu xirayay xeradaasi. si gaar ah waxaa lagu heshiiyey in gebi ahaanba la xiro halka iska galaan ciidamada AMISOM iyo xeradaasi. waxaana la isku raacay in hawshaasi lagu dhammaystiro 3 December 2017. waxaa kaloo lagu heshiiyey in dhammaan ciidamada AMISOM iyo agabkooda laga saaro xerada OPD. hawshaasna lagu soo afjaro 31 December 2017 iyo in xeradaasi loo sameeyo albaab laga baxo oo ku furan degmada Wadajir iyo in hawshaasi lagu dhammaystiro 31 December 2017. haddaba sanad kadib markii heshiiskaasi la gaaray waxba kama hirgelin dhammaan qodobada la isku afkartay. xerada OPD lama xirin, weliba waxaa geli kara ciidamada AMISOM. sidoo kale waxay ka go'an tahay degmada Wadajir oo ay degaan ahaan ka tirsan tahay waxayna gudaha ugu jirtaa xayndaabka AMISOM. gudoomiyaha degmada Wadajir Cumar Cabdullaahi Xasan waxa uu ka mid ahaa mas-uuliyiinta Soomaalida ee ka qayb galay shirkaasi lagu go'aamiyey xiritaanka xeradaas. wallahi Haruun, annaga kulley markii naloo diraayey waxay ahayd markii aan kulley gudaha u gallo dhowr kulan 3 fadhi ayaan yeelanay qolada AMISOM oo aan ugu diyaar garoobeyna sidii aan ula wareegi lahayn meesha iyada ah. kulamada oo gudaha Xalana gudaheeda ka dhacayay annaga iyo maamulka gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda muxuu ahaa markaa jiray oo na hogaaminayay
ayaa muxuu ahaa watii qoraallo ay maalmo hore human qolooyinkan hay-adaha internationalka ka hadla ay soo saareen qoraallo noocaasa laakiin inagu markaa haddii aan gudaha ugeli lahayn oo aan baaristii aan rabno inaan ogaano markaa ka maamul ahaan ama gobol ahaan waa dhici karta in warbixinadu ay banaanka iyo qoraallo lagu helhelay laakiin xaqiiqa sax anagu ma aanan hayn ilaa aan la wareegno oo aan gudaha u galno waxaan maqlay in qorshaha hore uu ahaa in la xidho bishii December aynu soo dhaafnay 31keedii maxaa loo xiri waayay xilligaasi ballantii aan la lahayn Amisom oo anagu ay markaa aan ku ballanay iyagaa ka baxay ballantii maxay uga baxeen cudurdaar bay ka sameeyeen ballanta ay leeyihiin maadaama Christmaskii iyo New Yearkii ay ahayd oo wadanka markaa sanadka ku kala wareegayay ayay waxay dhaheen waxaan sameynaynaa muxuu ahaa ballan cusub ayay soo sameeyeen ballanta cusub haddana ma aysan socon kulley iyadoo saasaana maamulkii ayaa isbedelay oo maamul cusub ayaa gobolkii yimid waxaana filaynaa hadda maamulka cusub hadda yimid inuu meeshiisii kasii wado haddaba maxaa keenay in la xiri waayo xeradan sanad kadib markii lagu heshiiyey mid ka mid a saraakiisha maamulka gobolka Banaadir kana mid ahaa mas-uuliyiinta gobolka ee arrimahan ka shaqaynaya in muddo ah ayaan weydiiyey sababta keentay in la xiri waayo xeradaasi sargaalkaasi oo codsaday inaanan magaciisa iyo codkiisaba sii daynin waxa uu ii sheegay inaan ka soo xiganayo oo igu yidhi waxaa loo xiri waayay xeradaasi sababo la xiriira cagajiidka ciidanka Uganda ama Sector 1 oo xerada xukuma oo aan iyagu rabin in la xiro sida uu hadalka u dhigay waxa uu soo jeediyey sargaalkaasi in xadgudubyo iyo ka faa'iidaysi dhinaca dumarka ah ay ka dhacaan xeradaasi inkastoo aanu i tusin wax caddaynaya eedahaasi waxaa kaloo ii sheegay in xeradaasi ay lacaga ka sameeyaan ciidamada Amisom si sharci darro ah sida inay bannaanka u bixiyaan waxyaabo sharci darro ah oo ay ka mid yihiin waxyaabo nabadgelyada u xun sida uu hadalka u dhigay sida rasaasta iyo shidaalka ama waxaa laga soo geliyaa ayuu yidhi waxyaabo aan wanaagsanayn sida daroogada waxa aan weydiiyey sargaalkaasi inuu arrintan kala hadlay saraakiisha Amisom ee ay khusayso waxaana uu ii sheegay in mid ka mid a saraakiisha ciidamada Amisom uu si cad ugu sheegay inaan xeradaasi la xiraynin duqii hore ee magaalada Muqdisho Thaabit Cabdi Maxamed ayaan weydiiyey sida uu arko muddada ka soo wareegtay xilliga loogu talagalay in xeradaasi laga gooyo ciidanka Amisom iyo wararka sheegaya in saraakiisha ciidanka Amisom ay diidan yihiin xiritaanka xeradaasi arrinta aniga ima soo gaarin laakiin waxyaabaha oo aniga aan hubo waxay tahay kala guurka marka uu dhacay baa caqabado yimaadeen marka nidaamka saxda ee dawligana markay caqabad soo baxaan waa inaadan ku shaqayn xan laakiin aad ku shaqaysid wax xaqiiqo ah oo aad arrinta iishiiga soo baxay la adrees garayo saan ognahay markuu isbedel dhaco mid ciidameed ama mid maamuleed mar kastaba waxaa yimaada caqabadabaa soo baxo u baahan in dee qofkii markaa yimaado sharaxaad laga siiyo meesha ay joogtana loo sheego annaguna waajibkaas markaas wuu na saarnaa islamarkaa wuxuu si gaara u saarnaa guddiga nala shaqaynayay marka annagoo u jeedsan rabnaba cidda mas-uuliyadda qaadi lahayd waxay wax ka socon lahaayeen baa isbedelkaa muhiim way hal arrin baan rabay inaan ku laabto waxyaabaha akhlaaqiyaadka eed ka hadashay ka dhaca meesha intii aad guddoomiyaha ka ahayd marna ma lagu soo gaadhsiiyey cabasho toos ah ama wax caddaynaya dhicitaanka falalkaas wallahi runtii anigu markii reportka uu soo baxay 2014 marka mas-uuliyadda marka aan hayay markaan maanan hayn laakiin markaasi horta reportka hore waa arkay mar kastana ka muwaadin ahaan intaan mas-uuliyadda qaban xataa waa iga saarnayd in dadkeena dhib kasta gaaray inaan u istaagno gaar ahaan midda akhlaaqiyaadka aysan marnaba dhicin lana aqbalin loona istaago Soomaaliya macnaheedu haddii maanta ay u baahan tahay in la garab galo macnaheedu maahan in la dulmiyo marka dulmiga qofka muwaadin ahaan wuu isaarnaa markas inaan u istaago intii xafiiska aan joogana mar alla markii cabashadaas ayna soo gaartay oo ay ku saabsaneed arrimahaas guud ahaantooda iswada raacsan guddigaasaan u magacaanay oo si taxadira oo aad ka dareemaysid guddiga ilaa heer degmaa ku jira oo degmada wadajira ku jirtay iyo degmada waadari iyo degmada xamarjajab oo saddexdaas si ay si hoose ula socdaan maadaama heer degmo aan gaarsiina macnaheedu annagu waxaa naga go-nay in dadka deegaanka ee degmada maamula in dhib kasta ee muwaadin kasta soo gaaray ee degmadooda u istaagaan jawaab cadna ay ka bixiyaan marka annagu marka ayna soo gaartay tilaabadii mudneed waa qaadnay guddigaasna waa u magacawnay baaritaanana waa sameynay wixii loogu talagalay ee looga hortegi lahaana haddii noqon lahayd hogihii maamulka degmada iyo hogihii booliiska ay ku shaqayn lahaayeenna meesha dhisma ahaan waa ka diyaarinay laakiin caqabadaha baa soo baxay ee ahayd inaan markaas adrees gareenno oo aan idhi waktigii baa nagu sii waayay galka baarista waxay xiritaan la'aanta xeradan soo gaadhay bishii abriil ee sanadkan waxaana muddo bilo ah qaadatay in mas-uuliyiinta ay khusayso lagu wada qanciyo inay ka hadlaan arrintan isla markaana ay waraysi ka bixiyaan intii baaritaanku uu socdayna waxaa soo korodhay walaac kale oo ku saabsan eedan la xiriira xerada OBD
kadib markii 2 bishii August ee sanadkan ay warqad u qortay Lisa Filiberto oo ah madaxa xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan taakulaynta ciidamada AMISOM ee lagu magacaabo UNSOS. waxayna warqadaasi u dirtay madaxa AMISOM Francisco Madeira. waxay kaloo warqadaasi ogeysiisay ergeygii gaarka ahaa ee xilligaasi u qaabilsanaa qaramada midoobay Soomaaliya Michael Keating. galka baarista waxa uu helay warqadaasi, waxaana Lisa Filiberto ay warqadaasi ku sheegtay sidan: waxaan doonayaa in aan kula socodsiiyo in 4 Julaay 2018 qaramada midoobay ay soo gaareen warar aan la xaqiijin oo ku saabsan in xiriiro dhinaca galmada oo lagu tilmaami karo xadgudub galmo ay ka dhaceen deegaanka lagu magacaabo OPD oo ku dhex yaala qaybta AMISOM maamusho ee garoonka diyaaradaha Muqdisho. warbixinahan waxaa ku jira eeda muujinaya inay suurtagal tahay inay ku lug leeyihiin ciidamada AMISOM iyo ajaanib kale. tani waxa ay keenaysaa walaac ah in shaqaale ka tirsan qaramada midoobay iyo shaqaale ka tirsan midowga Afrika, hay'adaha kale ee caalamiga ah iyo shirkadaha caalamiga ah ee qandaraaslayaasha ah inay ku lug lahaan karaan. waxaad xusuusataa inay jireen eedo hore oo tilmaamay ficillo aan munaasib ahayn oo ay ka mid tahay xadgudub galmo inay ka dhaceen OPD. eedahaas oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ugu baaqay midowga Afrika in la baaro kadib warbixintii hay'adda xuquuqda aadamaha Human Rights Watch ay soo saartay sanadkii 2014 kuna saabsanaa xadgudubyada galmada ee ay geysteen ciidamada AMISOM. waxaan si rasmi ah ugu wargeliyey warbixinahan hordhaca ah qaybta baaritaanka ee qaramada midoobay xafiiska kormeerka gudaha, waxaana dhici karta in ay baaritaan bilaabaan haddii ay u arkaan in shaqaale ka tirsan qaramada midoobay ay ku lug leeyihiin. baaritaankoodana waxaa dhacda inay wadatashi kala sameeyaan xafiiskaaga. howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya ee uu hogaamiyo ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ee Soomaaliya waxay sameeyeen qiimeyn taas oo ay ka mid ahayd aqoonsiga, qiimeynta iyo daweynta wixii halis ah ee suurtagal noqon kara ee la xiriira xadgudubyo galmo haddii ay ka dhaceen OPD si loo hirgeliyo tallaabooyin wax lagaga qabanayo walaacan. qiimeynta waxay ku talisay in xafiiska anshaxa iyo akhlaaqda ee UNSOS ay la wareegaan wixii tababaro ah ee ka hortagid halistan xadgudubyada galmada ah. tababarkaasi oo ka dhaca OPD iyo in calaamado muuqda lagu dhajiyo albaabada laga galo OPD. intaas waxaa dheer, sarkaalka qaramada midoobay u qaabilsan amniga waxa uu soo rogay amar shaqaalaha dhammaan qaramada midoobay ka hor istaagaya inay galaan xerada OPD saacadaha u dhaxeeya 5 galabnimo ilaa 8 subaxnimo maalin kasta. warqadaasi kadib ayaa haddaba 27 bishii August AMISOM waxay soo saartay war saxaafadeed ay ugu magac dartay isbeddello lagu samaynayo qaabka amniga iyo galitaanka xerada AMISOM, iyadoo aan war saxaafadeedkaasi lagu xusin eedaha ku jiray warqadda Lisa Filiberto ay qortay. waxaana war saxaafadeedka AMISOM lagu sheegay sidan: howlgalka AMISOM ee Soomaaliya waxaa maanta uu ku dhawaaqay tallaabooyin cusub oo ah dhinaca amniga iyo habdhaqanka galitaanka xerada Xalane. isbeddeladan waxaa ka mid ah in mar kale qiimeyn lagu sameeyo irdaha laga galo lagana baxo xerada. bulshooyinka dariska ah gaar ahaan dadka degan OPD waxa ay xerada ka soo geli karaan oo keliya albaabka Madiina Gate. tallaabadan waxay lagama maarmaan ka dhigtay in la xiro dhammaan irdihii hore ee OPD ee laga geli jiray ama laga bixi jiray, iyo in gaadiidka loo leexiyo inay adeegsadaan albaabka Madiina Gate goor walba. tallaabadani waxay waafaqsan tahay AMISOM oo dib u eegaysa amnigeeda iyo habdhaqanka. waxaa intaasi dheer, AMISOM waxa ay bilaabi doontaa inay dib u diiwaan geliso dhammaan rayidka gelaya xerada. dhammaan shaqaalaha rayidka iyo qandaraasleyda waa lagu wargeli doonaa wixii isbeddel amniga ee dheeraada. howlgalka AMISOM ee qaramada midoobay waxay taageeraan ciidamada AMISOM. waxay kaloo leeyihiin ciidamo ka socda midowga Afrika oo ilaaliya AMISOM. warqadda ay qortay Lisa Filiberto waxaa ku qornaa suurtagalnimada in ciidamada hoostiga qaramada midoobay ama shaqaale ka tirsan qaramada midoobay ay lug ku lahaan karaan ficilada laga soo sheegay OPD. dabayaaqadii bishii Sebtembar mar uu soo boqday xarunta qaramada midoobay ee New York ayaan weydiiyey ergeygii hore qaramada midoobay u qaabilsanaa Soomaaliya Michael Keating waxa uu ka qabtay arrintaasi iyo waxa uu ka maqlay eedahaasi. Look, when I first heard about it, my colleagues and I immediately took action because there is an absolute zero tolerance policy on UN. markii ugu horreysay aan maqlay aniga iyo dadkaan wada shaqaynaa si degdega ayaan tallaabo uga qaadnay, sababtoo ah siyaasadda nooga taala qaramada midoobay xadgudubyada dhinaca galmada waxa weeye haba yaraatee kuwa aan loo dulqaadan karin. mana jirto wax caddayn rasmi ah in shaqaale qaramada midoobay ay ku lug leeyihiin, laakiin suurtagalnimada inay taasi dhici karto ayaa xitaa keentay inaan tallaabo qaadno. waxyaabaha kale aan samaynay waxaa ka mid ah inaan guddi xaqiiqraadina si degdega ugu dirnay nawaaxiga OPD. waxaan ku soo rognay bandow hirgelinteeda ay maamulaan shaqaalaha amniga ee qaramada midoobay.
michael keating waxa uu si xooggan u diiday in eedahaasi la sheegay ay wax ka jiraan. waxaa kaloo uu sheegay inaanu ogeyn qorshe lagu xirayay xerada OPD oo ay ka wada hadleen saraakiisha Soomaalida iyo kuwa AMISOM. These allegations were brought to my personal attention was on the 4th of July 2018, and I immediately took the actions that we're currently talking about. markii ugu horreysay ee warkan aniga shakhsiyan la ii soo gudbiyey waxay ahayd 4 Julaay 2018 waxaan markiiba qaaday tallaabooyin aan kaga hadlayno oo ay ka mid yihiin inaan qabto shir dhinaca amniga oo degdega xiriir aan la samayno AMISOM guddi xaqeeraadiisa oo loo diray nawaaxiga OPD bandow iyo in gelitaanka goobtaasi la xayiro iyo weliba in shaqaale ka tirsan qaramada midoobay uuna u dhowaanin. waxaan arrintaa ku wargelinay AMISOM si buuxda ayay u taageersan yihiin tallaabooyinkan. anigu kama warqabin in saraakiisha Soomaalidu ay doonayeen in deegaanka la xidho. arrintaas la iima sheegin. aad baan u jeclaan lahaa inaan arko dukumentiga aad haysid iyo saraakiisha Soomaalida ee ku baaqay iyo haddii ay jiraan caddaymo dad dhibanayaal ah oo sheegay inay wax dhaceen. haddii aad caddaymahaasi keento si culus ayaan u qaadanayaa. kadib muddo dhowr toddobaad ah oo galka baarista uu isku dayay inuu khadka telefoonka ku helo saraakiisha AMISOM waxa ugu dambayn maalintii shalay noo suurta gashay inaan khadka telefoonka ku helo madaxa howlgalka AMISOM Ambassador Francisco Madeira. waraysigii aan la yeeshay oo dheeraa waxaa su'aalaha ugu muhiimsan ee aan weydiiyey ka mid ahaa waxaa ka jira eedaha sheegaya in xilligan OPD ay ka dhacaan xadgudubyo iyo ka faa'iidaysi dhinaca galmada ah oo ka dhan ah haweenka ku nool xeradaasi. waxaana uu ku jawaabay sidan. So far, we have not received any specific report or any complaint. ilaa hadda ma aynaan helin wax warbixin ah oo gaar ah ama wax cabasho ah. nooc kastoo cabasho ah oo qofku uu ku sheegayo in loo geystay xadgudub iyo ka faa'iidaysi galmo oo ay geysteen ciidamada AMISOM. laakiin wararka kutirkuteenta ah way iska socdaan. la iima keenin kiis u baahnaa inaan hawl ka qabto oo la xiriirta xadgudub iyo ka faa'iidaysi galmo ama tacaddi ka socda OPD. waxaa kaloo aan weydiiyey Francisco Madeira inay isaga soo gaadheen wax cabashooyin ah oo toos ah wixii ka dambeeyey daabacaadii warbixintii Human Rights Watch sanadkii 2014. waxaana uu ii sheegay inay baaritaan ku sameeyeen cabashooyin ka dhan ahaa qaybta saddexaad ee ciidamada AMISOM oo ah kuwa Ethiopia iyo qayb kale oo ka tirsan ciidamada AMISOM oo aanu carrabaabin. Look, we have received some complaints related to Sector 3 and another sector. waxaan helnay cabashooyin khuseeya qaybta saddexaad Sector 3 iyo qayb kale, laakiin waan baadhnay si hufan annagoo raacayna inaynaan waxaas u adkaysan karin oo ah siyaasadda noo taalla. baadhitaankana way u suuro geli weyday shaki ka sokow in eedahaasi ay geysteen ciidamadan in la caddeeyo. way jiraan eedaha, laakiin waan baadhnay kuwa la eedeeyey waxaana adeegsanay saraakiisha dhinaca xuquuqda aadanaha iyo ilaalinta jinsiga. ilaa haatanna waxba waan weynay. waxaanu caddaynay cid kasta oo lagu helo xadgudubyada dhinaca xuquuqda aadanaha ah oo ay ku jirto xadgudub iyo ka faa'iidaysi galmo waxay waajihi doonaan sharciga, loomana dul qaadan doono. Ambassador Madeira, madaxa howlgalka AMISOM ahna wakiilka gaarka ee gudoomiyaha midowga Afrika u jooga Soomaaliya, waxa aan weydiiyey jawaabta uu ka bixinayo warqadda ay qortay Lisa Filibeto. waxaana uu ku jawaabay sidan. When it comes to these things, we are very, very serious. We don't operate on rumors. What is this thing? What does it mean, unverified reports? What does that mean? What does it mean? You have to give some clues. marka ay timaado arrimahan aad baan meel adag uga taagannahay. kuma shaqayno kutirkuteen. maxay tahay warar aan la xaqiijin? maxay tahay macnaheedu? waa inaad raadraac bixisaa. waa inaad xog bixisaa si aan ugu isticmaalno baadhitaankeenna. markii aan warqaddaas helay si niyad wanaag ah ayaan uga jawaabay in waxyaabahani ay dhibaato yihiin. waxaan u sheegay inaan hareeraha yaga eegayno oo aan soo xuuraansanayno wixii jira. haddii aan cid ku qabanno wax sidaas u eg tallaabo ayaan qaadaynaa. sidaasi darteed waxaan warqaddan u aragnay eedayn. jawaabtayduna waxay ahayd mid degdeg ah. waxaana u sheegay Filibeto in dhowr bilood ka hor inta aynaan helin warbixinteeda in durbaba hoggaanka AMISOM ay qaateen go'aan ah in gebi ahaanba la xiro OPD, lagana xiro wax xiriir ah oo toos ah in OPD ay la yeelato xerada.
waxaa kale oo aan soo saarnay warmurtiyeed ah inaan halkaasi ka hirgelinno nidaam lagu arko lagulana socdo dadka soo gelaya xerada rag iyo dumarba iyo dadka ka baxaya lana diiwaan geliyo nidaamkaasi iyo kan xerada lagu xirayo waa ay wada socdaan waana la diyaarinayaa waxaana si dhow ula shaqaynayaa Filibeto oo sheegtay in UNSOS ay keeni doonto injineero iyo agabkii lagu xiri lahaa albaabadaas waxa inoo sheegtay waxay ahayd kutirkuteen ilaa hadda ma hayno wax caddaymo ah oo aan tallaabo ku qaadno waanse soo dhowaynaynaa qof kasta oo haya wax xog ah oo ku saabsan sargaal AMISOM ah military ama rayid oo ku lug lahaa habdhaqankaas waxaana ka qaadaynaa tallaabo aan naxariis lahayn sharciga ayayna ishelayaan oo lagu qaadaya Madeira oo aan wax ka weydiiyay sababta loo xiri waayay xeradaasi sanad kadib markii sidaasi lagu heshiiyey waxa uu sheegay in markii laga hadlay taariikhdaasi la qabtay ay noqdeen kuwo aan la fulin karin waxaanse go'aaminay ayuu yidhi in la xiro xeradaasi waana la xirayaa waxa uu sheegay in AMISOM ay u caddahay inay diyaar u yihiin inay fuliyaan arrintaasi qodob kale waxa uu yahay ayuu yidhi go'aamada waa la qaatay laakiin shaqo ayaa ka horreysa waana in dadweynaha loo sheegaa waxa loo xirayo albaabkan dadweynuhuna waxay rabeen tasiilaad sida iskuul in loo dhiso waxaana uu sheegay inay hayaan lacagtii ay iskuulkaasi ku dhisi lahaayeen waxa uu igu yidhi hadda diyaar ayaan u nahay in la xiro xeradaasi albaab ayaan xiraynaa mid kalena waan furaynaa waxa kaloo aan u baahannahay ayuu yidhi inaan helno qaab aan ku ogaano waxa soo gelaya xeradaasi sababtoo ah ayuu yidhi qofkii OBD soo gala waxa uu soo gaari karaa qayb kasta oo ka mid a xerada marka waa inaan helnaa ayuu yidhi qaab amni oo aan kaga hortagno wixii halis dhinaca amniga ah ee ka yimaada ambasadar Madeira waxa kale oo aan weydiiyay sida uu arko hadallada aan ka soo xigtay sargaalka Soomaalida ah ee ka shaqaynaya in la xiro xeradaasi oo soo jeediyay eedayn ah in taliye ka tirsan ciidamada AMISOM uu sheegay inaysan marnaba xiraynin xeradaasi ambasadar Madeira oo arrintaas ka jawaabayay waxa uu yidhi My response is that AMISOM is a rule-based institution. I am the commander-in-chief of AMISOM. jawaabteedu waxa weeye AMISOM waa hay-ad sharciga ku shaqaysa aniga ayaana ah taliyaha AMISOM qaybta koowaad qaybta labaad ama qaybta tobnaad aniga ayaa u taliya qofka sidan sheegayaana wuu iska hadlayaa waxa uu ka hadlayaa khayaali anigu waxaan ahay qof dimuqraadi ah waan la kulmaa kooxda hoggaanka ee la talisa waxaana u sheegaa aragtidayda haddii ay igu raacaan waan saxeexaa haddii ay diidaanna sharaxaad ayaan weydiiyaa ma aha wax ku xiran taliyo qaybeed oo go'aanka ugu dambeeya ka qaata arrintan sidaasi darteed waxa ay doonaan ayay sheegi karaan aniguse waan xirayaa xerada OBD wayna dhacaysaa waa arrin farsamo sida aad og tahay tasiilaadka AMISOM waxa bixiya UNSOS maadaam Filibeto haddii ay ii sheegto in 7 lagu qabto hawshaas waa lagu qabanayaa 7 ma jiro qof diidi kara haddii uu yahay taliye ama qayb galka baarista waxa uu la xiriiray qaar ka mid ah dadka degan xeradaasi waxayna diideen inay bixiyaan waraysi ku saabsan dhacdooyinka la sheegay inay ka dhacaan xeradaasi sidaasi darteed galka baaristu ma arkin wax caddaymo ah oo muujinaya in AMISOM ay xadgudubyo iyo ka faa'iidaysi dhinaca galmada ah oo caddaymo wata ay kula kaceen haweenka Soomaalida ee ku sugan xeradaasi waxa kale oo toddobaadkan ii suura gashay inaan waraysi la yeesho guddoomiyaha xerada OBD Cilmi Warsame Maxamed waxaana uu ii sheegay inaan isaguna uusan arkin wax xaqiijinaya eedahaasi waxaase uu si cad u sheegay in dadka ku jira OBD ay doonayaan inay ka go'aan AMISOM inkastoo uu sheegay in koox ganacsato ah oo la macaamisha AMISOM ay taasi ka soo horjeedaan arrintaas dadka qaar way jecel yihiin dadka qaarna way diidan yihiin waa gartay marka waxaa nagu jira ganacsato ilaa soddon albaaba marka la yidhaahdo xaggaasaa lagu darayaaba iyagaa yaacayo odhanaya yanna lagu darin sideedan hana loo daayo waa gartay marka kuwa doonaya in laga gooyana maxay iyaguna ku doodayaan kuwaasi maba hadlaane in la gooyo way jecel yihiin laakiin xafiisyada ma tagaan waa gartay maxay ku jecel yihiin in la gooyo aniguna waan ku daalay adu dhinaceed ku jirtaa anigu dhinaca waxaan ku jiraa dadka doonaya in albaabka la furo oo lagu daro xaafadda wadajir lagu daro haa sababaha aad u doonaysa maxaa ka mid ah sababahaan u doonaya waxaa ka mid a meesha waxaan ku nahay gadoonka awgeed waxaanu ka baxnaa airportka u dhowaan subax markaan magaalada doonayn ayaanu ka baxnaa waa gartay halkaasaan marka dambena ka soo galnay gaadiid male waxbama male kulayl dhibaataasaa jirta oo aan ku diidan
waa gartay dhibaatooyin kale oo waxaa jiray dhowr hay-adood ka shanqariyeen oo ku saabsanaa in xiriirka in meesha uu xiriir ku dhex maro ciidamada askarta iyo dumarka soomaalida xiriirkaasoo mas-uuliyiinta qaar ay ku tilmaameen oon la hadlay midaan munaasab ahayn oo akhlaaqda ka baxsan ka waran arrintaas arrintaa walaalo wallaahi waxba anigu horta kama caddayn karo in kooban baa la macaamisho waa inta ganacsatada ah waa gartay adigu mooyi qof kale inuu jiro laakiin adigu ganacsatada oo dhammi waa la macaamishaa waa gartay eedahaas la sheegayo ee ku saabsan macaamil aan akhlaaqda ka baxsan ama galma ku jirto oo kale inay xiriirkaasi leeyihiin ma maqashay adu hadda ka hor ma aragtay dadka xeradoo ka sheekaynaya dadkuu soo dacwooday ma jiraan xadgudubyo saas inay dhaceen maadaama guddoomiyaha tahay cidi ima soo dacwoodin horta wax ii soo dacwooday ma jiraan waa gartay wax qaylinayana ma maqlo waa gartay marka arrintaas waa xeeradan aan joognaba way ka dhex socotaa maaragtay arrintaas arrin anigu dacaayadun baan markaa u qaato waxaani anigu wax ii soo dacwooda mar haddaanay jirin meel aan u qaadaya ma jirto waa gartay hadda iminka muddo toddoba cashaa biyo la-aan bay xaafadu tahay biyo ma hayno waa 100 jeeraan la hadalay waa la keenaa wax la keenayna male dhibkaasina xaafadda iminka uu haystaaba biyaha yaa gooyey biyaha waxaa ceel baa meesha ka qodana ceelkaas meesha jooga ayaa odhanaya waxbaa iga xun kolba maantadan qudheeda waan tegey wuxuu yihi waxaasaa iga xun marka adigu wuxuunbuu sheegtaan xaaladana guntoodana lama gaari karo yaa waayo qofka dhahaya ceelka waxbaa ka xun waa ugandhiis waaye waa ciidamo ugandheesa ha waa gartay maxaa kaloo aad ku qabtaan ugandheeska biyaha ka soko ugandhiiska waxaanu ku qabnaa koronto waa gartay oo bilaasha oo 24 saaca waa gartay xaafadda waxay u ballan qaadeen waagii hore ee xaafadda kasoo goynayeen biyaha korontada iyo nabadgelyada waa gartay adigu nabadda ilaahay baa hayee waa iska fiican tahay nabad waa gartay awalse korontadii hadda korontadii caadiga ahayd way naga gooyeen way goosteen laakiin luuqluuq baanu uga helaa wax maxay u goynayaan garan mayno arrintaas marka waxyaabahan la gadayo lagu iibinayo ganacsatada aad ka hadashay mobaylla iyo waxyaabahaasaad tiri ma ku jiraan daroogo iyo hub meesha ka gudba darooga way ku jirtaa waa gartay hubkana war kama hayno oo huba ma maqal laakiin darooga waa daf xaggey ka timaadaa daroogadu ya xaggey ka timaadaa daroogadu calaa ku sheegaan ayay sameeyaan kiniiniyaal darooga abay ayay gadaan adigu waa jiraa daroogadaas way jirtaa xaggey ka timaadaa daroogada yaa keena waxay ka soo qaadaan naagahaasaa soo qaado magaaladun bay ka soo qaadaan xashiishada waa lagu gadaa marka magaalada laga keenaa ciidankaa laga gadaa ha aad baad u mahadsantahay waraysiga marka waan sii daynayaa idaacaddan ka sii daynaya aad baad ugu mahadsantahay waxba kama qabtid sooma inaan sii daayo waad sii daynaysaa waxba kama qaba weliba waxaad leedahay waxaanu doonaynaa madluum baanu ka nahay amisom waa inay noo furtaa albaabada xaafadda albaabada waa inay u furtaa weliba raacinaysaa ayuu leeyahay guddoomiye magacaygo cilmi warsame maxamed la yidhaah ugu dambayn barnaamijka galka baarista waxa uu la xiriiray maamulka gobolka banaadir ee xilligan iyo dowladda soomaaliya inay ka qayb galaan barnaamijkan ilaa haatanna kama aysan soo jawaabin codsigii galka baadhista